Sheekadan cabsida badan waxay ka dhacday mid ka mid ah waddamada Carabta. Marka ugu horreysa aan maqlo ereyga jinn ama aan ka sheekeynayno qisaska iyo sheekooyinka, aan bilownay inaan soo qaadano sheekooyin ku saabsan jinniga, waxaad arkaysaa dadka agtaada jooga inay baqayaan, walaacayaan, qaarkoodba waxay ku leeyihiin waryaa nagadaa sheekooyinkaas. Markaasay bilaabayaan inay magaca Ilaahay ku celceliyaan oo ay akhriyaan Qur'aan. Waa adduun cabsi badan, aadanaha had iyo jeer wuu ka baqayaa waxa uusan garanayn. Sidaas darteed, inkastoo adduunka jinka uu yahay mid aan si fiican loo aqoon, haddana sheekooyinka jinka ku saabsan ma dhammaadaan. Aniga waxaan idinka sheekayn doonaa waxyaabo badan, sababtoo ah waxay soo martay waayo aragnimo dhab ah oo iga dhigtay inaan si dhab ah u fahmo adduunkan. Qodobka koowaad ee aan idinku leeyahay saad u fahamto in jin kugu hareeraysan yihiin ama aad gashay meel ay jin badani ku sugan yihiin waa waxaad urin doontaa ur aan caadi ahayn, ur u eg midka ka dhasha kibriitka ama si gaar ah urka ka dhasha markay leydhadh ama fiilooyin koronto gubtaan. Saan idinku siiyo sharxaad sax ah, urkaasi wuxuu noqon karaa mid la mid ah urka timo bini'aadam oo gubanaya. Haddaad la yaaban tahay, timo yar ka jar madaxaaga, dab ku shid, markay gubtaan urta ka soo baxda ayaa ah urka jinka. Dabcan, hadday dhacdo inaad samayso tan iyadoo jin kuu dhow yihiin, waxaa dhici karta inay dhinacaaga soo aadaan si degdeg ah. Waxay aad u jecel yihiin urka timaha gubanaya, weliba si xad dhaaf ah. Hadda dhegaysta asxaabay, dhegaysta qisadii naxdinta lahayd ee i qabsatay sannado ka hor. Anigu waxaan ahay walaalkiina Cimaad, da'dayduna waa 26 sano jir. Anigu waxaan ahay sida dhalinyarada kale ee badan ee ku nool dunida Carabta. Waan koray, waxaan dhameeyey jaamacadda, waxaana haysanay riyooyin ah in qofka markuu jaamacadda dhammaysto uu shaqo toos ah helo kadibna uu arooso oo noloshooda ay wataan. Riyooyin badan ayaa haysan oo aan rabno inaan gaarno. Laakiin asxaabay, anigu jaamacadda waan ka baxay, waxaanan fadhiyey 1 sano, 2 sano, sababtoo ah runtii kulliyadeedu waxay ahayd ganacsi. Taasina ma ahayn mid shaqo fiican lagu helo oo meeshan joogay kama shaqayn jirin. Aabbahay asxaabay waa nin adag, waan ognahay inuu na koriyey oo na barbaarshay, laakiin xaaladuhu aad bay u adkaayeen. Anagu waxaan ku nooleen meel tuulo ah. Aabbahayna maalin iyo habeen wuxuu ii odhan jiray, adigu rag ma tihid, da'daaduna hadda waa 26 sano jir. Kac, dhaqaaq oo shaqo raadso. Ugu dambayn, waxaa qasab igu noqotay inaan ka tago tuuladii. Aabbahay wuu i eriyey, wuxuu igu yiri, shaqo raadso ama ha ku soo noqonin guriga. Guriga ma sii joogi kartid adigu sida hablaha u fadhiya. Anigu waxaan u kacay nin qaraabadeena ah oo guursaday walaashayda weyn. Waxaan la deganaa isaga, Ilaahay ha barakeeyo. Ninkaasi wuxuu ahaa qof wanaagsan, wuxuuna lahaa 2 baabuur, mid uu shaqada u isticmaalo iyo mid kale oo dug ah oo uu hagaajiyey. Wuxuu igu yiri, dhegayso Cimaad, baabuurkani adigaa leh, qaado oo ka shaqee, dadka ku qaad, samee waxaad awooddo, u qaado hadiyad ahaan. Wuxuu siiyey lacag yar oo 400 oo riyaal ah. Anigu aad baan ugu mahadnaqay, waxaana ka baxay gurigooda. Runtii gurigooda wuxuu ahaa mid yar, ayaga iyo labadooda carruur ayuuba cidhiidhi ku ahaa. Aniguna waxaa noqday mid baabuurkii wata oo marba meel u wareegaya, raadinaya rakaab. Mararka qaar waxaan helaa 1 rakaab ama 2, waxaana geeyaa meesha ay doonaan. Waxaana keliya helaa lacag yar oo aan wax ku cuno oo ku cabo. Laakiin xaaladdu way adkayd, hawadu qabow ayay ahayd, roobna wuu da'ayay. Habeeno badan ayaan baabuurka ku seexan jiray, sababtoo ah lacag ma haysan waxaan ku kiraysto guri. Xitaa ma awoodin inaan galo hotel aan seexdo. Ilaa maalin maalmaha ka mid ah, aroortii saacaddu waxay ahayd ku dhawaad 7 subaxnimo. Anigu waxaan caado u lahaa inaan aado dukaanka Adeer Yaxye. Adeer Yaxye waa nin Yemeni ah, da'diisuna waa 60 sano. Laakiin Ilaahay baa barakeeyey, wuxuu si cajiib ah u sameeyaa sandwich. Waxaan si gaar ah u jeclaa sandwichka beerka uu ku sameeyo. Beerka oo jis lagu daray ayuu ka samayn jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan dukaanka fadhiyey. Sida muuqata, maalintaas waxay ahayd Jimce. Waxaan muuqday inaanay jirin macaamiil subaxdii aan kaxeeyo. Markaas ayuu ninkii dukaanka lahaa Adeer Yaxye ii eegay oo bilaabay inuu qoslo. Wuxuuna igu yiri, haye Cimaad, maxaa dhacay? Maxaad samaysay? Waxaan ku iri, Ilaahay baan ku dhaartay adeer, xaaladaydu way adag tahay. Ma hayo wax shaqo ah, xitaa rakaab ma helo. Markaas ayuu wuxuu ii keenay jaraa'id. Jaraa'idkaas wuxuu xambaarsanaa xayeysiisyo kala duwan. Dad raadinaya alaab, dad doonaya in la geeyo goobo,
dad kale oo dalbanaya adeegyo kala duwan. Jaraa'idkaas waxaa ku qornayd xayeysiin odhanaysa waxaa loo baahan yahay qof leh gaari oo ka shaqeeya bakhaar ku yaala meel safarleyda soo marto, meel aad u fog, meel cidlo ah oo aan cid kale joogin. Waxaa ku qornaa lambarka taleefanka ee lagala soo xiriiro haddii aad rabto shaqadaas. Anigu waan ka helay fikradda, ugu yaraan shaqo ayay ahayd. Waxaan islahaa haddaad naftaada ku maarayn karto waa fursad. Waan qaatay lambarka, si degdeg ah ayaan u wacay raggaas. Telefoonkii waa la qabtay. Waxaan yidhi assalaamu calaykum. Wacalaykum salaam walaal. Walaal sababtan idin soo wacay waxay tahay waxaan helay xayeysiin sheegaysaa inaad shaqaale bakhaar idinka shaqeeya aad u baahan tihiin. Adigu magacaa ayay igu yiraahdeen. Magacaygu waa Cimaad. Haa Cimaad, aniga ayaa kula hadlaya. Gaari ma haysataa? Haa adeer, waan hayaa gaari. Waa si wanaagsan. Da'daadu waa imisa? Waxaan idhi adeer, ma gabar baad isiinaysaa mise shaqo ayaad iga rabtaa? Maxaad ii weydiinaysaa da'dayda? Anigu 26 sano jir ayaan ahay. Haa waa hagaag, laakiin waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo waxyaabo. Bakhaarkan wuxuu ku yaalaa meel aad u fog, meel ka baxsan magaalada aad joogto. Ilaa 100 kiiloomitir ayuu kuu jiraa. 100 kiiloomitir? Adeer, arrintaas way adag tahay ayaan idhi. Sidee baan maalin kasta ugu safri karaa 100 kiiloomitir oon markaasna ku soo noqdaa? Doqon yahow, yaa ku yidhi inaad maalin kasta tagto oo soo noqoto ayaa la rabaa. Adigu halka ayaad degi doontaa. Shaqadaadu waxay noqon doontaa 2 waqti, subax iyo fiid, oo macnaheedu waa inaan maalinta oo dhan shaqeeyo. Markaad timaado markaas ayaan si faahfaahsan kuugu sheegayaa. Laakiin ogow, magaalada dib uguma noqon kartid. 4 biloodba hal mar ayaad aadaysaa, markaasoo fasax qaadan karto 2 maalmood oo keliya. Haya adeer, laakiin hoygaygu waa halkee? Xaggee baan seexan doonaa? Wuxuu igu yidhi hoy waad helaysaa. Wuxuu ku yaalaa isla bakhaarka gudihiisa. Bakhaarku wuxuu ka mid yahay xarun shidaal oo yar. Waxaa meesha jooga shaqaale kale oo mas'uul ka ah shidaalka. Waa hagaag, way wanaagsan tahay inuu jiro qof kale. Laakiin adeer, ma aniga iyo ninka kale keliya ayaa halkaas wada degi doono? Maya, ninka mas'uulka ka ah shidaalka wuxuu leeyahay qol gaar ah oo gadaal ku yaala. Meel ka fog ayuu degan yahay. Adigu qol gaar ah ayaad ku leedahay gudaha bakhaarka. Haya adeer, anigu dhib kuma qabo arrintaas, laakiin si daacad ah markaan u hadlo, shaqadu waxay u baahan tahay dadaal badan oo meel fog ayay ku taalaa. Laakiin mushaarka imse ayuu yahay? Waxaan ku siin doonaa 5,000 oo riyaal ayuu iigu yidhi. 5,000 oo riyaal ayaan ku siinayaa bil walba. Waa hagaag. Ma xaqiiq baa inaad isiinayso 5,000 oo riyaal ayaan idhi. Haa waa xaqiiq. Waxaan xitaa diyaar u nahay inaan ku siino kalabar mushaarka isla marka aad shaqada bilowdo. Waa hagaag, waan ogolahay adeer ayaan idhi. Wuxuu igu yidhi haye nabadgeliyo. Waan dhameeyey wicitaanka. Waxaana ninka dukaanka lahaa igu yidhi war maxaa dhacay? Waxaan ku idhi adeer bishaaro, Ilaahay baa khayr i waafajiyey. Ragga shaqada way i qaateen. Xaggooda ayaan u socdaa hadda. Adeer Yaxye wuxuu igu yidhi shaqadaas xaggee bay ku taalaa? Meel fog bay ku taalaa. 100 kiiloomitir ayay iga xigtaa ayaan idhi. Laakiin waxaad aaminsan tahay in mushaarku uu yahay 5,000 oo riyaal ayuu igu soo celiyey. Ayadoo ay tahay shaqo bakhaar oo keliya. 5,000 oo riyaal. Ma dhici kartaa in qof ka shaqeeya bakhaar uu helo 5,000 oo riyaal? Wuxuu keensan karay nin reer Aasiya ah oo keliya lagu siiyo 1,000 riyaal bishii. Laakiin adeer, tani waa nasiibkaaga. Ilaahay baa kuu soo diray. Adigu waad fiican tahay oo khayr baad mudan tahay. Tag, la xiriir oo hubi wax walba. Haddaad awooddo, heshiis la gal. Taas ayaa kuu roon. Haa adeer, waan tagayaa nabadgeliyo ayaan idhi. Waxaan ka baxay dukaanka anigoo aad u faraxsan. Waxaa ii soo hartay oo aan haystay ku dhawaad 80 riyaal. Waxaan gaariga ku shubtay shidaal si ugu filnaado safarka fog. Waxaan safarka bilaabay saacaddu markay ahayd 6 fiidnimo. Ma rabin in aan seego fursaddan. Waxaan rabay inaan u gaaro si degdeg ah. Markaan ku dhawaad 1 saac iyo bar aan socday, waxaan gaaray meesha la ii tilmaamay. Ninkii aan la hadlayay wuxuu ii sheegay inuu meesha leeyahay, laakiin markaad aragto, ma ahayn meel aad mooddo in 5,000 oo riyaal laga heli karo. Meesha waxay ahayd xarun shidaal oo qadiimi ah. Waxaad ka xishoonaysaa inaad tidhaahdo waa xarun shidaal. Hal matoor bay lahayd oo loogu shubo bensiinka iyo mid kale oo lagu shubo naaftada. Labaduna aad bay qadiimi u ahaayeen. Marka loo eego xarumaha casriga ah ee maanta, kuwaas oo leh matooro elektaroonig iyo adeegyo badan, tan waxay u eg tahay sidii mid la dhisay 70 sano ka hor. Markii aan meel fog ka arkay, waxaan arkay bakhaar yar oo cunto. Aad buu u yaraa runtii. Waxaan la yaabay, meel sidan u yar miyaa la igu leeyahay?
mushaar 5,000 oo riyaal ayay bixisaa. Xitaa waxaan is iri agabkan dukaanka yaala haddaan isku daro qiimihiisa malaayiin ma gaarayaan. Markaan istaagay waxaan galay bakhaarka, laakiin waan la yaabay, ma jirin cid joogta. Waxaan bilaabay in aan qayliyo, waryaa halkan jooga. Markaas ayaa nin ka soo baxay qol ku yaala gadaasha bakhaarka. Ninkaas wuxuu lahaa muuqaal cabsi leh, shaarib weyn, indho casaaday, madaxana wuxuu ku xirnaa maro si la yaab leh loo xiray. Wuxuu yidhi, haa maxaad rabtaa? Waxaan ku idhi, salaamu calaykum adeer, waan idin soo wacay, balse ma hubo qofka aan la hadlay inaad adigu tahay ama in kale. Wuxuu igu yidhi, haa, adigu waad isoo wacday, magacaagu waa Cimaad sax? Haa, waa run baan ku idhi. Haa, waan ku xasuustaa, aniga ayaa leh bakhaarka iyo xarunta. Markaas baan is idhi, matan ayaa xarun ah, meesha oo dhan wax yaalo 2 matoor oo duug ah. Wuxuu yidhi, ha u qaadan sidaad u aragto, meeshan waxa yimaada macaamiil aanad filayn. Laakiin anigu waxaan lahaa, hadda waxaan joogaa nus saac, hal qofna ma arkin. Waxaad xasuusataa markaan kula hadlayay waxaan ku idhi, hal shaqaale baa ka shaqeeya shidaalka. Haa, waad ii sheegtay baan idhi, laakiin ma arko qofna. Wuxuu iigu jawaabay, adigu hadda bakhaarka ayaad joogtaa, su'aalo badanna ma rabo, ma fahamtay? Haa adeer, laakiin waxaan rabaa inaan hubiyo wax muhiim ah. Waxaad ii tiri mushaarku waa 5,000 oo riyaal sax? Haa, 5,000 oo riyaal ayuu igu yidhi, laakiin ma hubtaa? Waxaan ka baqayaa inaad ii keento 5,000 lacagta Yimaan ah. Wuu qoslay oo yidhi, ha cabsan, mushaarku waa 5,000 riyaal oo Sacuudi ah. Haddaad shaqada bilaabayso caaba, waxaan ku siinayaa 2,500 riyaal oo horumaris ah. Ilaahay khayr ha ku siiyo adeer, waan ogolahay, maan u soo safri lahaa 100 kiiloomitir haddaanan rabin. Shaqada waan rabaa. Haye waa hagaag, fadhiiso meeshan uu yaalo miiska lacagta. Qof walba wuxuu iskiis u qaadan doonaa waxyaabaha uu rabo, qiimahana wuu ku dul qoran yahay. Adiguna waxaad keliya halkan u joogtaa inuu lacagta ku siiyo. Wuxuu yidhi, haa, shaqadaada waa intaas oo keliya, laakiin hal shuruud baan kaa rabaa, waana muhiim. Waxaan idhi, waa maxay? Wuxuu yidhi, shaqaalaha kale ee xarunta jooga, ninka la yidhaahdo Ibraahim, waa nin da'weyn oo in badan nala shaqaynayay, laakiin waxaan kaa rabaa inaadan aaminin wax uu ku yidhaahdo. Laakiin adeer, haddii uu beenaale yahay, sidee baad shaqada ugu haysaan? Miyaydan ka baqayn inuu wax hado baan ku idhi? Wuxuu yidhi, taasi adigu shaqadaada maaha, waanu aaminay, laakiin aniga waxaan ogahay inuu yahay nin khiyaano badan. Dad badan bay sababtiisa uga tageen shaqada. Waxaan isleeyahay, Ibraahim wuu neceb yahay in qof kale ka shaqeeyo meeshan. Waxaa muuqata inuu qarinayo sir weyn. Sir, maxay tahay baan idhi, xagee buu Ibraahim hadda joogaa? Waxaan rabaa inaan arko. Wuxuu yidhi, Ibraahim shaqadiisu waxay bilaabataa 6da fiidnimo. Wuxuu shaqeeyaa habeenkii maxaa yeelay dadka safarka ah waxay yimaadaan habeenkii. Marka waxaan ugu yeernaa oo ku naanaysnaa baqal. Maalin walba wuu seexdaa, habeenkiina wuu shaqeeyaa. Kadib wuxuu jeebkiisa ka soo saaray 2,500 riyaal wuxuuna igu yidhi, qaado waa lacagta bilowga shaqada. Waan la yaabay, waxaan is iri, bal aan hubiyo lacagtu ma beenba. Laakiin waxay noqotay lacag dhab ah. Waan farxay, xitaa waxaan rabay inaan gacantiisa dhunkado, laakiin wuxuu iska ilaaliyay xitaa inaan gacanta ka salaamo. Kadibna wuxuu si lama filaan ah ugu laabtay qolkii dukaanka gadaashiisa ku yaalay. Waqti badan ayaa ka soo wareegatay, anigana waxaan fadhiyay miiska. Ibraahim weli ma soo bixin, inkastoo hadda ay ahayd waqti mugdi ah, meesha wax macaamiil ahna ma iman. Laakiin waxaan bilaabay inaan maqlo codad ka soo yeeraya qolkii gudaha ee dukaanka. Waxay ahaayeen codad u eg qof ooyaya. Waxaan fadhiyay qiyaastii 2 saacadood. Markaas ayaa nin cabsi leh yimid, nin da'diisu ahayd ilaa 70 sano jir. Wuxuu istaagay horteeda wuxuuna igu yidhi, adigu ma waxaad tahay shaqaalaha cusub? Waxaan idhi, haa, aniga ayaa shaqaalaha cusub ee dukaanka ah, laakiin yaa tahay adeer? Wuxuu igu yidhi, magacaygu waa Qariib Alkhasiis. Milkiilaha bakhaarka ma ku sheegay wax igu saabsan? Maya, waxba iima sheegin. Yaa tahay adigu? Wuxuu igu yidhi, anigu waxaan ahay Ibraahim, ninka xarunta shidaalka ka shaqeeya. Oo Ibraahim adiga miyaa? Wuxuu igu yidhi, haa, waana ku maqlay. Milkiilaha dukaanka wuu kaa sheekeeyey. Wuxuu yidhi, waxaad tahay wiil wanaagsan oo shaqo jecel. Laakiin waxaan niyadda iska idhi, aniga waxaan u malaynayaa inaad been sheegaysid. Wuxuu i weydiiyey magacaa. Waxaan idhi, magacaygu waa Cimaad. Wuxuu yidhi, haye Cimaad, aniga iyo adiga waxaynu isla joogaynaa meeshan. Ninka leh bakhaarka, ninka aad hadda arkayso, wuu tagayaa goordhow, wuxuuna degan yahay tuulo fog. Waa nin 2 sano ka hor guursaday, noloshiisa ayuu ku nool yahay,
wuxuu adiga kuu doortay inaad bakhaarka joogto. Hubaal wuu ka qanciyey mishaarka sax. Waxaan idhi haa, wuxuu i siiyey mishaar fiican. Wuxuu yidhi haye, hadda dhegayso. Haddaad rabto taladayda, talo ka timaada nin kaa weyn oo le'eg aabbahaaga. Taladeedu waxay tahay Cimaadow, ha joogin meeshan, ka tag, hadda ka bax. Sababtaan uga tagayo ii sheeg baan idhi. Wuxuu yidhi ninka shaqada ku siiyey ma rabo khayr inuu kuu yimaado. Waxaad isweydiisaa 5,000 oo riyaal mishaar ah maxaa laguu siiyey? Waa bakhaar qadiimi ah oo cidlo ah. Iska jir Cimaad, tani waa fursaddii ugu dambaysay. Ka tag meeshaan. Isla markaas bay ahayd. Albaabkii qolka dambe ee dukaanka wuu furmay. Ninka hore ii keenay ayaa soo baxay. Markii uu Ibraahim arkay, wuu cararay sida ilmo yar oo aabbihiis arkay. Ninkii wuu u yimid oo yidhi, haa, sida muuqata adiga Ibraahim si degdeg ah baad isu barateen. Waxaan idhi maya, aniga halkan ayaan iska fadhiyey. Isagaa isoo dul istaagay. Wuxuu weydiinayay magacayga goorta aan imid. Wuxuu yidhi haye dhegayso Cimaad, anigu magacaygu waa Abuuhaadi. Waan hilmaamay inaan kuu sheego. Hadda waxaan ku laabanayaa tuuladayda. Waxaan leeyahay carruur badan oo aan la joogaa muddo 2 bilood ah mar kasta, ka hor inta aanan ka soo noqon. Inta aan maqanahay, adiga ayaa mas'uul ka ah bakhaarka. Ma fahamtay? Waxaan idhi haa, waan fahmay adeer. Laakiin xasuuso, siday aan kuu sheegay, Ibraahim ninkaas khiyaanada badan ee bannaanka jooga, ha aaminin waxa uu kuu sheego. Haddii uu kuu sheego inaad bidix u dhaqaaqdo, adigu midig u soco. Hadduu kuu sheego haa, adigu maya dheh. Qofkaas iska ilaali. Iska ilaali inaad la fariisato ama la sheekaysato. Ma fahamtay? Haa adeer ayaan idhi. Hadda su'aal baan ku weydiinayaa Cimaad. Markaan shaqada ku siinayay, ma xasuusataa inaan ku weydiiyey inaad leedahay baabuur? Waxaan idhi waan la yaabay, laakiin ma fahmin sababta. Wuxuu yidhi gadaal ayaad ka ogaan doontaa sababta aan kuu doortay. Hadda wax kastoo cunto oo aad u baahan tahay waxay ku yaaliin bakhaarka. Haddaad rabto inaad wax karisidna, qolka aan hadda ka soo baxay waxaad ka helaysaa wax kasta. Sariir lagu seexdo, suuli, iyo jiko intaba. 11 habeenimo markaad xirto bakhaarka, gudaha geli alaabta oo iska seexo. Laakiin si fiican u dhegayso. Qolka gudaha ku yaala, mid kale albaabka madow ee alwaaxda ah, ha furin. Marna ha isku dayin. Ma fahamtay? Waa maxay sababta adeer? Maxaa ku jira baan idhi. Wuxuu yidhi waan kuu sheegay, ha ku fikirin inaad furto. Qolkaasi adigu shaqo kuma lihid. Qolalka kale ee hurdada iyo kan jikada iyo kan musqusha way kuu furan yihiin. Laakiin albaabkaas madow ha taaban. Ma fahamtay? Waxaan idhi waan fahmay adeer. Xitaa haddaad i tiraahdo seexo baabuurka, diyaar baan u ahay. Wuxuu yidhi maya, intaas ma gaarsiisna. Seexo qolka aan kuu sheegay. Kaliya ha furin albaabkaas madow. Ma fahamtay? Waxaan idhi haa adeer, waan fahmay. Waxaan idhi ha welwelin adeer Abuuhaadi. Wax walba anigaad igu og tahay. Iska bax. Alle ha kuu sahlo safarkaaga. Qoyskan ha kuu farxiyo. Bakhaarkan ha ka welwelin. Ninkii wuu baxay. Asxaabay waxaan si lama filaan ah u dareemay gaajo. Waxaan furtay qaar ka mid ah keegyada yaalay iyo casiir. Kadibna waxaan fadhiistay miiska lacagta, anigoo eegaya hareeraha. Bakhaarku waa mid qadiimi ah. Xitaa alaabta ku jirta haddii la isku geeyo, lacag dhan 5,000 oo riyaal ma gaaraan. Ninkan ii siiyey mishaar 5,000 oo riyaal ah waa qof waalan. Muxuu sidan ka wadaa? Waa iska caddahay inuusan caadi ahayn. Wuxuu kaloo yidhi habeenkii dukaanka iyo xarunta shidaalku way shaqaynayaan oo dad baa imanaya. Laakiin Ibraahim wuxuu dibadda u fadhiyey sidii qof waalan. Wuu iska qoslayay isagoo ku ciyaarayay wax uu gacanta ku hayo. Maba arag hal macmiil oo soo galay xarunta ama bakhaarka. Waxay ila tahay inaan galay meel ay dadka waalan ku sugan yihiin. Maxay sheekadoodu tahay? Ka hor intaan saacadda gaarin 11 habeenimo, dhowr daqiiqo ka hor, Ibraahim ayaa soo galay dukaanka. Wuxuu qaatay caano iyo wax kale. Kadibna wuxuu siiyey lacagtii. Markuu damcay inuu baxo ayaan ku idhi adeer Ibraahim, su'aal baan ku weydiinayaa. Xarunta shidaalka ma shaqaynaysaa mise maya? Haddii aysan shaqaynaynin, maxay u furan yihiin albaabada? Adigu waxaad joogtay dibadda dhowr saacadood. Hal gaari ma arag oo yimid suu shidaal u shubto. Anigana hal qof bakhaarka ima soo galin. Maxay sheekadu tahay? Wuxuu yidhi haye dhegayso Cimaad. Macaamiishan badankooda waxay ka yimaadaan tuulooyinka nagu hareeraysan. Maanta waa Jimce. Dadkuna badankood kama baxayaan tuulooyinkooda. Laakiin beri iyo wixii ka dambeeya waad arki doontaa. Wadadan horteeda ah hadda waa mugdi, laakiin waxaad arki doontaa baabuur badan oo maraya. Ha baqin. Hadda maxaad qabanaysaa ayuu igu yidhi.
waxaan ku dhahay waan fadhiyey, laakiin hadda waan gaajooday. Waxaa laga yaabaa inaan wax yar karsado, xitaa ukun, kadibna waan cunayaa. Wuxuu yidhi ma rabtaa inaan wada cashayno? Waxaan idhi maya maya, ma rabo inaan kula casheeyo adiga. Nabadgelyo. Wuu baxay, laakiin asxaabay, ninka la yiraahdo Ibraahim shaki ayuu igu abuuray. Waxaa muuqata inuu qarinayo sheeko. Mararka qaar wuu qoslaa, mararka qaarna wuxuu ekaa qof cabsanaya ama welwelsan. Da'diisu way weyn tahay. Wuxuu u eg yahay nin 65 jir ilaa 70 jir ah, laakiin dhaqaaqiisa aad buu u degdeg badan yahay. Wuxuu dhaqaaqaa sidii ilmo yar, qof la yaab leh oo firfircoon. Waxaan is iri, arrintiisa waxba kaama galin. Markay saacadu gaartay 11 habeenimo, waan damiyey laydhka. Waxaan xiray albaabada bakhaarka ee banaanka, kadibna waxaan galay qolka. Qolku waa mid caadi ah. Waxaa yaalay sariir duug ah, musqul iyo jiko yar ayaana ku dheggan. Waxaan go'aansaday inaan karsado ukun. Waxaan hayay rooti iyo casiir. Markaas aan bilaabay inaan casheeyo. Laakiin asxaabay, si daacad ah haddii aan u hadlo, markaan casheeyey kadibna sariirta seexday, waxaan bilaabay inaan il ku hayo albaabkaas madow ee Abuhadi ii sheegay in aanan marna furin. Maxaa albaabkaas dahsoon ka dambeeya? Maxay tahay sheekada uu ka baqayo inaan ogaado? Wuxuu muuqday mid cabsi badan oo arrintan aad uga baqanaya. Waqti yar kadib, ayadoonba ka soo wareegan saacad, waxaan dhammaystay cuntadii. Waxaan u diyaargaroobay inaan seexdo. Waxaan damiyey iftiinka, laakiin si lama filaan ah waxaan bilaabay inaan maqlo garaac ka imanaya albaabka bakhaarka. Markaan banaanka u baxay, asxaabay yaa taagan. Waa Ibraahim, ninka ka shaqeeya xarunta shidaalka ee la moodo inuu waalan yahay. Wuxuu igu eegayay indho gaduudan, wejigiisana waxaa ka muuqday xanaaq fara badan. Waxaan ku iri, khayr miyaa jira Ibraahim? Maxaa dhacay? Xoogaa ka hor ayaad iga tagtay, haddana waad soo noqotay. Ma waxaad alaab ku ilowday bakhaarka? Wuxuu yidhi maya maya, bakhaarka waxba kama rabo. Laakiin dhegayso, miyaad go'aansatay inaad halkan ka shaqayso? Waxaan ku iri haa. Maanta ninka Abuhadi wuxuu i siiyey 2500 oo riyaal, nuska mushaarka. Waan aqbalay shaqada. Waxaan ku daalay inaan shaqo ka raadiyo magaalada. Xitaa mid 300 riyaal ah ma helin. Laakiin halkan 5,000 oo riyaal baan helayaa. Waana degan tahay, cidina i dhibi mayso. Ibraahim wuxuu yidhi, dhegayso Cimaad, waxaan kuu sheegayaa waxaan 2,000% aan ku kalsoonahay. Abuhadi, ninka dukaanka leh, wuu iga kaadigay aniga. Sow sax maaha. Waxaan iri maya maya, ninkaas waxan kuma uusan oo dhan, xitaa wuu ku ammaanayay. Wuxuu yidhi, waan ogahay inaadan rabin inaad runta sheegto, laakiin dhegayso Cimaad, waxaan u imid inaan kuu digo. Ma ogid in 4 shaqaale oo kaa horeeyay ay ka carareen halkan. Dhammaantood waxay baxsadeen waqtigii saxda ahaa. Anigana waxaan rabaa inaad baxsato. Waxaan iri nin yahow, anigu si adag baan u raadiyey shaqo. Hadda ayaan helay. Adiguna waxaad i leedahay carar. Wuxuu yidhi haa dhegayso walaal, anigu dan kale kaama lihi. Waxaan kaa rabo ma jirto, laakiin waxaan rabaa inaanan arkin adiga oo ku dhimanaya gudaha bakhaarkan. Waxaan ku yidhi dhimasho sidee ah? Wuxuu yidhi dhegayso, waxaan kuu sheegayaa wax muhiim ah. Milkiilaha halkan Abuhadi wuxuu been kaaga sheegay waxyaabo badan. Haa, sidii aan kuu sheegay, wuxuu qariyay sir weyn oo bakhaarka ku jirta. Sir maxay tahay baan iri? Wuxuu yidhi, ninkani waa saaxir. Wuxuu dadka halkan keenaa isagoo u sheegayaa inay shaqo helayaan, laakiin dhab ahaantii wuxuu adeegsadaa sixirkiisa. Wuxuu u baahan yahay dadka si uu ugu adeegsado sixir waa kuwa uu bartilmaameedsado. Wax kaloo jirta qol gudaha ah, mid leh albaab madow. Ma aragtay? Waxaan iri haa waan arkay. Wuxuu yidhi dhegayso, fur albaabkaas. Gudihiisa waxa ku jirta gabar. Haa, waa gabadhayda Manaal. Waxa lagu xidhay gudahaas. Saaxirkan Abuhadi ayaa aniga iyo gabadhayda halkan nagu xidhay. Wuxuu naga hor istaagay inaan baxno. Sanado badan ayaan halkan ku xirannahay. Miyaadan dareemin inaan da'weynahay? Laakiin aan u dhaqaaqo sidii ilmo yar, sababtoo ah jini baa igu jiro. Jiniga ayuu igu sii daayay. Iyagaa i maamula. Gabadhayda gudaha ayay ku jirtaa. Ilaahay dartii, waan ku baryayaa. Fur albaabka oo ka soo saar, kadibna aan wada baxsano. Adigu baabuur baad haysataa. Waxaan iri adeer Ibraahim, Abuhadi wuu igaga digay inaan adiga kula hadlo. Wuxuu i sheegay inaad tahay nin beenaale ah oo khiyaano badan. Anigu si dhib badan baan ku helay shaqadan. Hadda adigna waxaad i leedahay fur albaab. Wuxuu ku qayliyey, fadlan, Cimaadow dhegayso. Albaabka fur. Fur albaabka madow. Waxaan iri maya, ma furi doono wax albaab ah.
ninka dukaanka iska leh wuu igu adkeeyey in aanan albaabkaas furi karin. Wuxuu yidhi, ma isweydiisay sababtoo si gaar ah ugaga digayo albaabkaas? Waxaan idhi, anigu arrintaas waxba igama gelin. Waxaa laga yaabaa inuu leeyahay wax gaar ah oo uusan rabin in aan arko. Xaq ayuuna u leeyahay. Ibraahim wuu igu qayliyey, maya Cimaad, gabadheeda Manaal ayaa lagu xidhay gudahaas. Waxaan idhi, ma gabadhaada? Sidee bay gabadhaadu ugu xidhnaan kartaa halkaas adigoo ka shaqeeya xarunta shidaal? Markaasaan ku idhi, adeer Ibraahim, Ilaahay ha kuu naxariisto. Anigu hadda waan seexanayaa. Subaxii markaan tooso, waxaad iga heli doontaa halkan. Waan ku maqlayaa markaas. Sheekooyinkaagana waan dhegaysanayaa. Hadda iska tag. Markaasaan ku xidhay albaabka isagoo taagan, isagoo ooyaya. Runta marka la sheego asxaabay, waxaan iska dhigay inaan gudaha galay, laakiin dhab ahaantii meel fog ayaan istaagay oo waan daawanayay. Ninkaas sida ilmo yar buu u ooyayay. Wuu soconayay oo soo noqonayay, isagoo isku dayay inuu dareensiiyo. Laakiin anigu waxaan si toos ah u galay qolkii gudaha. Waan xidhay albaabka. Waxaan go'aansaday inaan seexdo. Ninkan wuu waalan yahay ayaan is idhi. Hore ayuu ninka dukaanka iska leh Abuuhaadi igaga digay. Wuxuuna u sheegay in aanan dhig jalaq u siin wax kasta oo Ibraahim igu yiraahdo. Asxaabta sharafta leh, markaan indhahayga isku daboolay saan u seexdo, si lama filaan ah waxaan bilaabay inaan maqlo garaacitaano. Garaacitaan. Waxay u egtahay inuu Ibraahim soo noqday. Laakiin markaan dibadda u baxay, yaab, qofna ma joogo. Markaasaan isweydiiyey, garaacitaanku xaggee ka imanayaan? Waxay ka imanayeen albaabka madow. Isla albaabkaas gudaha baqaarka ku yaala, kaasoo Abuuhaadi ugu adkeeyey in aanan weligay furin. Laakiin yaabka ugu weyn wuxuu ahaa in garaaca uu u ekaa inuu qof gudaha ku jiro, qof gudaha ka garaacaya albaabka. Markaasaan istaagay albaabka agtiisa. Waxaan ku idhi, yaa garaacaya albaabka? Cod dumar baa igu jawaabay, aniga walaal, aniga waan ku xidhanahay halkan. Magacaygu waa Manaal. Ninka baqaarka iska leh ayaa i xidhay. Abuuhaadi Ilaahay ha ciqaabo. Waxaan ahay gabadha adeer Ibraahim. Ninka bannaanka jooga, Ilaahay dartii iiga fur albaabka. Subxaanallah, waxaan istaagay anigoo yaaban, jirkayga oo gariiraya sidii qof baraf lagu shubay. Waan rumaysan waayey. Run miyuu sheegayay Ibraahim? Miyay dhab ahaan gabadhiisa Manaal ku xidhan tahay gudaha baqaarka? Waxay dhammaanaysaa sheekada iyadoo xaalad culus la marayo. Qof dumar ah ayaa gudaha ku qaylinaya. Codkuna waa mid quus ah. Ibraahim wuu oynayay. Manaalna way qaylisay. Laakiin su'aashu waxay tahay, Cimaad muxuu samayn doonaa? Ma furaya albaabka madow mise wuu ka baqayaa? Asxaabta sharafta badan, sayn u soo badano sheekooyinka cabsida leh ee noocan oo kale ah. Laag inoo saan muuqaalka si dad badan u gaadho. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.